السلام الله عليكم ساكي برامج كينو وحكمة يسنيهاي حكمة أنا وحي لهاي سدح إن أي كوسو هرمرتو هدي أي بكو دافين أيا كو وناكسن دلن يرى سدح دانو إن يران تادا كوسو مران أيا كو وناكسن هدي أي بكو دافينين كو جيرو إن أي كوسو مرتو أيا كو وناكسن هدي أي بكو دافين يران تادا سببتو هدي أد حنوصن تهاي heerkaada aad ka xanuunsantaa hooyada had dhabta uga jiiftaa aabaha ayaa daawo kuu raadinayo laakiin markaad naqato qof weyn oo masuul ah aad xanuunsatid laba ayaa kuu taala haddii aad dumar tahana waxaa kuu taala jiraaleyda ilmaha loo haayo hala caawiyo haddii aad wiil tahana waxaa kuu yaala jiraalowgii dabkiisa hala shida dabkaaga dasana ilaahay nooma keeneen marka xanuunka ama jirada haddayna ku dhaafin intaa yartaa inaad guriga intaa ku dhex jirta aad jirata ayay ku wanaagsantaa ama xanuunsatid labo guur xun haddii uuba ku dhaafaynin waxaa wanaagsan inuu kuu hormaro oo guurka wanaagsan oo kuu dabamaro haddaan ka hor waxaa dhacday oday reer baadiye ah ayaa wiilkiisa wuxuu ku yidhi aabow xamar ama muqdisho ayaan aadaya inaan shaqaystaan rabaa ii duceey wuxuu ku yidhi aabe shaqo allaha kuu sahlo gabar ku dhibto ilaahi kuu sahlo wuxuu yidhi aabe shaqada aamiin laakiin gabar i dhibto oo guur dhib badan xa iigu duceeye wuxuu yidhi aabe gabar ku dhibto allaha kuu sahla kuu duceeye soco wiilka caasimada u imaaday waa u shaqaystay waa u guursaday gabar dhib badan oo guursaday oo halkaas u gashay aabihiisoo safarha magaalada imaaday xamar gabadhii uu arkay aabba wuxuu yidhi ducadaadi waa tanaa waa shaqaystay alxamdulilah guriga reer baan yeeshay laakiin ducadaadi waa tanaa uu yidhi qofta inta iigu jirta waa bal fiiri waxay ku hadlaysa waxay leedahay aabbaha feeraha weyne oo adiga kula eg 22 cuntada waa idin kariye soo degsaday cuna war duqan feeraha weyne adigaan feeraha weyne dharkiina ma dhaqataan war adig oo aabihiisa ku hor caynaysaa aabba wuxuu yidhi inkaartaadi waa tanaa ee ka xaaxaabi aabba wuxuu yidhi ayadan kugu ogahay waana laabta safarkan waa ii dhammaaday 2 maalin ka bacdi wiilkii gabadhi waa hay waayey waa iska furay gabar kale wanaagsan oo baari oo guursada muddo ka bacdi aabiya safar kale ku imaaday wuu soo martiyey wuxuu dhahay aabbow tan maxaa iigu duceey weysay aabba gabar wanaagsan ayaa helay aabba gabadhan baariyo waa aabba gabadhan raaliyo waaye alla gabadhan gabar waa dhaaf wuxuu yidhi aabe guur xun haddii uu kusoo marayo inuu kuu hormaro ayaa kuu wanaagsan tii hadda aa iska furtay ayaa kuu dabamari laheyd gabadhan miskiintaana inaad ku caasisa ayaa furi laheyd sababto ah qofku markuu gabar baariya oo guursado ama gabadha wiil baariya ay guursato ma oga ka daran inay dhici karto way ku caasinaya way ku xanaaqi haddii la kala tago guur xun hadda u dabamara wareer ayay ku jireen marka wuxuu yidhi waduba guur xun haddii la kulmaysi inuu kuu hormar ayaa wanaagsan wiilkeydiyo hadda guur xun ayaa kuu hormaray mid wanaagsan ayaa kuu dabamaro saan ayaan kula rabay wiilkiyo kuma habaarin yani inaan wax ku tusaaleey ayaan rabay aabbaha wuxuu jeclaa wiilkiisa inuu guur fiican oo lagu nasto oo guursado laakiin wuxuu diidaa inuu gabadhan fiican usoo hormarto oo iska furo oo midda xun u dambaysa ilaa cimrigiisa qodobka saddexaad wuxuu yahay faqiirtinimo haddii kusoo marayso yaraantaada ayay ku wanaagsan tahay reerkiina hadduu sabool yahay waxba haysan adiga mas-uuliyad kama saaro hooyo aabba wixii noola mas-uuliyad ka saaran tahay oo wixii reerku cunad wax ka cunaysaa laakiin markii aad mas-uul naqatid oo adigu naftaada mas-uul ka naqatid ama awlaad intaa dhashay awlaadaada aad mas-uul ka naqatid mas-uuliyad weyn ayaa ku saaran adoo taajirnimo kusoo koray weynaanta haddii faqiirnimo lagu tusiyo sankaa walaata xobta kala bixee madaxana waxa xooganaya waa wareeri meel lagaa jiraa weynaya dadka xataa iimaanka lahayn inay isla hadlaan ku dhawaanayaan marka wax la-aanta iyo saboolnimada waxay ku wanaagsan tahay adigoo yar inay kusoo marto xikmadayna ahayd 3 haddii ayna ku huraynin in ay yaraantaada kusoo maraan ayaa kuu wanaagsan halkaas ayaa kusoo dhammaystirayaa waa xanuunka intaa yartaa inaa xanuunsato ayaa wanaagsan haddii uu ku dhaafaynin faqiirnimadana yaraantaada inaad kusoo barbaarto ayaa roon haddii ayba ku dhaafaynin guurna midka ugu koobaad hadduuba kaa xumaanaya ka koobaad inuu kaa xumaadaa wanaagsan ka labaadna aa ku nasato halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xikmadayni 3leyda ahayd waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed suudi maxamed muuqaalkan waxaad ka daawan kartaan si waadaxa oo buuq la-aan ah samawada media si lamida farxadda media iyo weliba tiktokgayga maxamed suudi meel kasta waa ku arki kartiin subax wanaagsan